dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee isugu magacdaray Kenya Moja ayaa si adag u dalbanaya in wasiirka caafimaadka Aadan Barre Ducaale iyo agaasimaha guud ee hay'adda daryeelka caafimaadka bulshada ee SHA Dr. Mercy Mwangangi xilka laga qaado iyagoo ku eedeeyay inay ku lug leeyihiin fadeexad musuqmaasuq oo ay ku tilmaameen mashruuc si xeel dheer loo soo qorsheeyay. hogaamiyaashan oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Nairobi ayaa sheegay in lacago dadweyne si sharci darro ah loo siiyay xarumo caafimaad oo horey loo xiray. waxay tusaale u soo qaateen Sipili Maternity and Nursing Home oo la xiray kadib warbixin television laga sii daayay oo baaritaano ah, balse haddana la siiyay lacago malaayiin shilin ah iyada oo loo sii marayo nidaamka caymiska caafimaadka ee SHA. maray maanta warbaahinta la hadlayeen ayaa xildhibaanadan waxay u qabteen wasiirka in muddo 72 saacadood waa 3 maalin gudahooda oo xilka isaga casilo. We now demand for the immediate resignation of Honorable Aden Duale. waxaan maanta si cad u dalbanaynaa in si degdeg ah uu isku casilo mudane Aadan Ducaale oo ah wasiirka caafimaadka sababo dhowr ah dartood. sababta koowaad waa isku dhacyo danaha shakhsiga ah. sababta labaad waa dayac iyo inuu ku guul daraystay waajibaadkii saarnaa. halka sababta saddexaadna ay tahay inuu isku dayay marin habaabinta shacabka isagoo adeegsanaya warbaahinta si uu ugu cabsi geliyo xarumo caafimaad qaarkoodna uu si kumeel gaar ah u hakiyay. banaanka markuu u joogo wuxuu ku hadlayaa hadallo ad adag, hase ahaatee dhinaca kale uu shacabka qayaanayo. sidaasi awgeed waxaan sidoo kale ku baaqaynaa in si degdeg ah xilka looga qaado gudoomiyaha SHA oo xiriir dhowlo leh xarunta caafimaadka ee cisbitaalka Ladnaan, iyo in xilka uu isaga tago agaasimaha guud ee SHA. agaasimahan wuxuu fududeeyay dhacdooyinkan xatooyada ah. waxaan si gaar ah uga digaynaa madaxweynaha dalka iyo saaxiibkiisa Ducaale in shacabka ay si buuxda ugu iftiimiyaan fadeexadda ay muddada dheer qorsheynayeen. The scam you schemed to put in place for a long time. cadaadis xoogan ayaa saaran wasaaradda caafimaadka iyadoo si weyn loo dhaliilayo lacagaha nidaamka caymiska caafimaadka ee SHA ay siinayaan xarumaha caafimaad. arrintan ayaa sii kululaatay kadib markii dowladda ay isniintii si lama filaan ah u xirtay boggii ay dadweynaha ka heli jireen ama lagu soo bandhigi jirayba lacagaha bil kasta la siiyo cisbitaalada, gaar ahaan iyada oo loo marayo nidaamka caymiska caafimaad ee SHA. Dr. Mwangangi agaasimaha guud ee caymiska caafimaadka ayaa dhankeeda shaacisay in SHA ay hakisay 45 xarumood oo caafimaad oo la sheegay in khiyaano ay sameeyeen.